yarkii yaraaye ibraahim xasan cumar gabood baa la keenay gabood baa la keenaa leeyahay shalay waa la keenay waa gar in la keenana waa xaq waayo dhib baa dhacday accident baa dhacay corporel oo waliba mortel ah dhacay oo dhimasho marka waxaan leeyahay hablihii dhintay Allah u naxariisto mar walbina waxaan leeyahay fataxadaha loo maro waa shahiid labada gabdhood ilaahay naxariistoodii janna Allah ka waraabiyo waxa kale jirto sheegaya ibraahim xasan cumar gabood baa la keenay biroga sheefku fadhiya kilmaad seer baa loo galiyay telefisyon baa loo keenay de aqligaasi waa maxay caaq ismaaciil dalka adaa ka madaxweyne xasan cumar kama madaxweyne ah ma ii sheegi kartaa de kuwan aad 760 qof dhex dhigtay ee dadkoodii ay arki kali laayihiin iyo kan aad telefisyoonadii u keenteen kilmaad seerada de intuba waa wadan ciidii calanka u dhasheen laakiin de waka aqligaaga iyo dawladaadii waa kaas reejabuutow soona arka soona eega ar haday beenta caaq ismaaciil tago soo eeg biroga sheefku fadhiyay oo miis loo dhigay oo sariir loo dhigay oo kilmaaseer loo keenay oo geemamkiisii oo dhan loo keenay oo waliba baabuur standby looga dhigay shofeer waxa loo wuxuu baahdo dibadda looga soo qaaday damee naga ka qabataa docayn nin jeclaysi adiga wata gar eexana adaa waliga u maali jiray de wata maanta kugu cadaatay ilaahay wuxuu waxa uu amarkaasi wuxuu u dhacay inuu adiga kugu facsaro gabood lagu arka de ficilada ayo kale ka warade ragii bukay masaakiinta ahaayee fuaad iyo gabasi iyo qaar kale badanna aad u diiday inay dhakhtar tagaan taladaadi iyo dawladaadi wataade soo ceeb ma hayo foolxumo ka warade taa maxaad nagula hadlayna xasan cumar madaxweyne ma ahe adaa wadanka ka madaxweyne xasan cumar waa wasiirka gaashaandhige adaana cadaalada u sareeye adaa ciidanka u sareeye adaa wax walba isku ama suldaan yaxye de soo sheeg maxaadna oran caaq ismaaciil anaa wax walbi ah de adaa wax walbi ah wakaada filkaasa ka dhacay isla doonasho ilaah fuaado shalay cajaladiisu soo baxday iyo ibraahim xasan cumar oo jeelkii la keeno aqalkii iyo maqsinkii loo hagaajiyay soo khashifaad ilaahay idin ku watay soo ma ahayn oo idin khashifayo de waka ceebtiini halkaas ilaahay baa idin la dagaalamaya xilka dhigo iska dareerade facsharkiini baa socda ceebtiini kuwan maanta gabood ku xireysan ay dadkoogu arki laayin hooyay aaba ma dhalin mise kuwa lama dhalo idinku baa kuwiinu baa la dhalaa kuwan madariiqada laga soo qaatay xitaa ka dariiqa laga soo qaatayna abaal buleeyay xaq buleey xaquuq buleey waa ilmo wadaniya mise kuwan kale naf ma leh oo dadnimo ma leh oo wadani ma aha kuwiina wadaniya kuwiina dadnimo leh kuwiina dhalada miyaa waa reerka ismahadiyay ee dawladda isku sheegaya sifadii iyo sansaankii dawladda ka haray ceebtu ilan ma xishootiin oo ma yaxyaxdiin waa idinka arkaya in telefisyoonna la keenay in kilmaad zeero la keenay in adduunka wixii dibad yaalay halkan la keenay maxbuusku de waxa la duleeyaanka kale kuwiinu maaha maxaabiis wax uu soo baxay uu soo xagaa baxay kiinu kalka de waxba maxkamad meydaan keenina beenaalayaal baad tihiin sinaama dirab warisana dirab leela marotanka sidii xasanatihi diraba uri meekisanam imaysiini kuma gulna oo taarigeen fadhinta taaban idin leeyaan idin kama yeelayno waa inuu sida dadka 760 ka dhex jiifsada haday cadaaladi jirto weeyaan laxtankee malxinanu mumkin maqsanaliyani ibraahim xasan cumar woo marat yangaleen fadhinta oo carika daldiinan fadhinta numa gabood ka beeni ka tikik hina carika bixisi hana kilmaazeerka hana telefisyoonka bahana macnaato حاجة يو علم حيل سيسانا ما تكهي وعدالة هنا عاق إسماعيل كل هي أبام حسن عمر باروها بهنا منستري يعني تنين كو باروها با أدول متسلان تبرين كو كادو وعديك ويان عاق إسماعيل كل جينو دوات كسيمنتين دالمين باتيهين دال كيبا عناق على دناليدين دمي يلان كرتين ودن كاني واقرن وعلى يدين كو حساب سن وحا دعايا كو يغونا هالكا هجيفان مساكينتو oo maaratay 760 sida saaradiinka isku rasaysnaadaan kuwiina wax dilay wax maaratay dhibaatooyinka geystayna maqsinaan u hagaajinayna aqligaasi waa aqligaagi aqligiisi aqli tabaraleelo gunta ka riday dalkiya dadkaba marka waxaan ku leeyahay reejabuutow waxba yaa beenlayni sheegin dirabnee warse waanama aw ka gaboot beenihi may aw ka gaboot tumaan ka aritiyan maqsanka bixisi kilmaazeerka haya gaboot tiyani ay tihinaya sabeeni farana may diraba
gabootu numatiyane ke laxtaanke malxinanu meleya maqsangiraayde waa inuu arkaa xarigu wuxuu ka dhigaya caaq Ismaaciil si aad dadkan u ciqaabaysa deesna u ciqaab mise kuwiina unba maaragtay dadka unbaad ciqaabtiin idinka laynima ciqaabo de waa layni ciqaabay idinkana ku talagalataa waa waxaad dhigateen waana laynii maali anigay noqotay anu mar walba ninka dulman baa dhankiisa ahay anigu mar walba qofka dulman ee dhiban baa dhankiisa ahay qofka dhibaataysan baan dhankiisa ahay ma eegayo anigu wada dhalasho ma eegayo ninku xigaba Allah ka xigaan anigu leeyahay taa ku talagala anu saasaan idin leeyahay waa reerka Ismahadiyow saas ogaada aniga shaqadayda maaha xaq baan ku dhaqaaqaya xaqi cangara arxeeyo fadhu way tohtaarigeen fadhinta anu dantayda ma eegaye danta dalka iyo dadkaygaan eegaya dantayda anu danka melihi idinka ayaa ii muuqda dadkaygan liita iyo dadkaygan lagu tumanayo dantooda aniga ay taabatay ima taabanin dadkan maaragtay meereysanaya ee maaragtay reerka isku daba didaya waxa kaloon ka hadlaya gabood baan maanta nii macnaynaya hawshu sida u socoto gabood waxa weeyaan waxay ka kooban tahay iyo inta ay u kala taalo waxa jira daarad weyn oo la yiraahdo Grand Kuurka weyn weeyaan waxa kaloo jira depot et cellule waxa la yiraahdo dus waxa jira meesha caafimaadka infirmeriga dispensaire-ka yar waxa jira quartier femme qaybta haweenka waxa jira meel la yiraahdo CES1 caruurta yar ee under age-ka mineerka waxa jira CES2 waxa weeyaan pour le nouveau prévenant kuwa yimaada ee cusub ee la soo xireeyo dadka cusub ee marka la keeno saal de transit ko kala weeyaan maqsinada 760 baa la isku dul saaran yahay 760 ayaa la isku dul fadhiyaa marka sida albaabka loo furo cudur baa la kala qaadaya marka saal leediin dad baan hagaajinaa dad baan wax u qabanaayo dad baan maaragtay war u hayna midka dad war u hayo dad war uma haysiin dad waa disheen waa dulaysan cudurka laga soo qaadaya Ilaahay un baa garan marka waxa weeyaan caaq Ismaaciil gabood waxaad ugu talagashay dadka inaad ku laysaan laakiin maanta kuwiini baa yimidayde kuwiiniina dadkii waad ka sara mariseen hawshiini baad la timaadeen marka gabood xabsiga gabood dad badan baa ku dhiban bismillah dad badan baa ku dhiban dad badan baa ku ciilan dad badan baad cudud ugu faanteen oo ku dhibteen waxa jiray nimada benitansiyega waxay qaataan 66,000 ragaasi way shaqeeyaan kiradoodii iskoolkii caruurta masruufkoodii ma awoodaan 66,000 maxay noqon kartaa idinkuna adduunkaad meel walba ku martaan xoolihii dalkiya dadka idinka xalaashaday xoolihii dalkiya dadka idinka gooni u xidhay marka inamada reer benitansiyega ee aabaha ah ee caruuraha leh 66,000 ku xakunteen caaq Ismaaciil maad ilaahay ka baqdid alla ka cabsigii baa kugu yaraaday inta dambe markaasuu kabtanku ka yidhaahaa dhabar adayga shaqeeya maxay ku shaqeynayaan isagoo xilliga xoolo wuxuu hayay dig buu ka siiyay kani cusubeed keenteen de kani cusub imikana fuaad cajaladiisii baa baxdeeda isagana waad kula xisaabtamaysiin baan u malayn hayle maxamed jaabac waa idinkii dusha kaga dhacay oo magafa dusha kaga dhacay oo beenta u sameeyay kanda isaga keenay gacan saar leeyihiin isaga keenay gacan saar leeyihiin oo lama hadlaysid inamadare masaakiinta uu kaadida ku dhajiyay 66,000 ayay qaataan 32,000 oo brima jiro loogu talagalay caaq Ismaaciil halkuu maray lama siinda caruurta yaryar ee masaakiinta ee aabaha ee wada mas'uulka ah ee dhibaataysan ee cidlada ku ciishay arka waxaan ku sheegayaa caaq Ismaaciil waad ceebaysan tahay waxaan u maleeynaa iskaga bixi wadanka oo carari adoo baydada oo cagala ayaad carari doontaa arka waxaan ku sheegayaa dalkan iyo dadkaniba waa bayla adaana baylah ka dhigay adaana noogu wacan dhibta marka nadhaaf waxba nooma haysida nadhaaf falkiiniyo falxumadiniyo ducayntiiniyo nin jeclaysigiina nala dhaaf meeshani waa qaran